مسجد كان بيت كان إلهي سبحانه وتعالى وأي لستي قبل ولاشن سرات حاج حسن iyo asxaabteeda ay dhiseen oo laga dhisay xaafadan Buruburu dadkan masaakiinta oo dhulkan degan oo masaajid aan lahayn loo dhisay ama masaajidada ay ka fog yihiin ama kuwii dhawaay laftoodii meelo wadooyin fiican oo loo mara aan jirin ilaahayga soo waafajiyay in waqafkan meeshan laga dhiga ilaahay asaga u doortay in meeshan laga dhiga ilaahay aan ku mahadinaynaa subhanahu wa ta'ala waxaan ilaahay ugu baryaynaa in ilaahay uu ka aqbalo wajiga ilaahay ay ula baxeen oo u dhiseen beedkan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu ka aqbalo subhanahu wa ta'ala waalidka dhintay oo magaciisa halkaas uu ku xusan yahay xaaji xasan gardheer ilaahay subhanahu wa ta'ala firdawsa iyo janno ilaahay guriyaha ugu dhiso ehelkiisana inta nool iyo inta dhimatay ilaahay inta dhimatayna ha u naxariisto inta noolna ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha ka aqbalo kuwii masaajidada sii dhisi doonaan iyo khayrkana ilaahay ha ka dhigo subhanahu wa ta'ala marka maadaama masaajidka magacaas oo masjid xaaji xasan laga waqfay xaajiga laga waqfay baas ku magacnaanaya insha Allah ku magacaabananaya walaalayaal guriga ilaahay subhanahu wa ta'ala sida quraankeena ilaahay uu ku dhahay إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلهي سيدا صيوده إلهي سبحانه وتعالى وحليه عد كلمة هانا قريها إلهي وحا عمرة عد إلهي رميسي أيوده إلهي سبحانه وتعالى عد كلمة عمرة يسمجرته waxa camiraya waxa waaye ku ilaahay rumeeyeen ayuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala camiritaankaas culimada islaamka waxay dhaheen waxa kamid ah in la camiro lagu camiro dhisma waxa kamid ah in lagu camiro cibaada waxa kamid ah in lagu camiro qurxin iyo rinjiyeyn iyo magaranaysa bakhuurin iyo udgin iyo baraafuunin iyo magaranaysa quraan akhris iyo nalgilin iyo magaranaysa wax walba oo masaajidkaas qurxinaya wixii lagu sameeyo dhamaala camiritaan la dhahaa cibaadada ugu weyn quraanka lagu akhrinayo salaadaha lagu tukanayo ugu weyn oo camiritaanka ugu weyn waxa loogu soo camirayo loo iimaanayo keenayo masaajidka dadkana waxa waa iimaan iyo magaranaysa rumayn qalbiga qofka ku jirto waa ilaahi subhanahu wa ta'ala ku ilaahi sidaas oo amaanay Allah nagu dar inma ya'muru masajid allahi من آمن بالله دتك الله ده الله نقدر واليوم الآخر دتك الله ده الله نقدر وأقام الصلاة وآتى الزكاة صلاتنا أوجين وسيد اللي ربي أوجتين زكدنا بحيان دتك الله ده الله نقدر ولم يخشى إلا الله إلهي موجعتك لو يكبقى يعني مجرد دتك الله ده إلهي نقدر محل وجود بيسي فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كواس وحي مضيهين إن نقدان كل هنونيي oo hanuunsan oo wadada toosan oo ilaahay jecel iyo raali kiyay ku sugan ilaahay aan ugu sugo subhanahu wa ta'ala marka jazaakumullahu khayran waqti kulul waa la jooga masaajidkana si rasmi ah insha Allah sheekha ku dhawaaqi doono furitaankiisa inuu si rasmi u furmay sheekh اللهم اجمعنا في دار كرامتك كما جمعتنا في هذا المكان المبارك إلهي وميشان بركيسن غرغادا غرياشادا غري كميد انو كل سو إلهي وجنة نوغو كلمي سيدي ميشان نوغو كلمي إلهي وذ رحمة الله نوغو كلمي كلمك إلهي نوغو عفي كلمك إلهي نوغو عفي كلمك إلهي نوغو عفي دمبغان إلهي داف إلهي موتدا إلهي نحريسه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء إلهي وموتدا إلهي نحريسه إلهي وعذر كان صاد إلهي نغا وريجي إلهي أنت حنوص إلهي عافي أنت حنوص إلهي عافي أنت كربيس كرب إلهي كفيد أنت مرقيس مرقت إلهي كفيت أنت بعديس إلهي سوهنوني أنت اللي بقلت إلهي إلهي كقاد أنت الدين ولا الدين إلهي كجد قفك استمراتك إلهي سهل إلهي وقبضان إلهي بيتك سدستي إلهي وخير إلهي زيادي خير جدك سمرتي إلهي زيادي إلهي مرادك إلهي سهل مرادك إلهي سهل مرادك إلهي سهل عنق نيد كوهايسو إلهي ونيسي نيد جعش إلهي ويل إلهي خيرك كسوع عليه جدك وناك إلهي كسوع عليه
حافظ القرآن حافظ القرآن حافظ السنة إله كيل إله مراد كده إله وسهل إيش تيكو إيش تيكو قبض ست إله كدك إيش تيكو قبض سنة إله كدك إله باري وكدك إله كف أهل الدين إله كدك إله أتوسي أرضك الضمان إله أتوسي أرض الضمان إله هجاجي ويل قبل إله وقبلها الله صعد ضمان قف كسم مراد كده إله سهل ربك أنا وكتوجنا بعد الجمعة الجوجا وقتي الساعة دعاء الأجيبة إلهي ونجا أقبل إله وكوه لك أقبل إله ونقدر إله وكله وحلو أقبل لك أقبل إله ونقدر إلهي وأقبل ضمانت إله دمجد إله دافد سانتا يسوق عطن إله وكأقبل أولها يبحيان إله وكأقبل مراد إله وسهل إله عرته هجاجي ضمانت إله نو هجاجي إله ويلشان إله هجاجي قبلها إله هجاجي نفتا إله نهجاجي أضياش إله هجاجي قبلها إله هجاجي قبلها إله حجابك كهنوني قبلها إله حجابك كهنوني حوينك دمان إله حجابك كهنوني قبلها هذا حجاب انتهى ودي قف دين له واي دين ما تيتوسيس إله قبلها إله حجابك كهنوني إله قبلها صدق الجاري إله كأقبل والد كذا إله أقبل إله إذا نتيجة نكوكش إله كدك والد كذا تيله جنا كوكل إله كدك دمانت والدته إله النهارس مراد كذا إله أسهل إله مفاتيح خير إله كدك تيفو ريالك خيرك نقطة إله كدك نبينا عليه الصلاة والسلام هو شيء يدك لما إنيه مد أفريها خيرك شرطنا قفل دت ساسا جير نبينا عليه الصلاة والسلام شيء كواس الله قدره dadka waxa jira dad oo sharta furiheeda wata khayrkana quful u ah la hawla wala quwwata illa billah ilaahu kuwaas naga dhigin ilaahu kuwaas naga dhigin kuwaas ilaahu naga dhigin ilaahu subhanahu wa ta'ala fi miftah khayr allah ka dhigo ilaahu subhanahu wa ta'ala waalidkeeda u baarifashay ilaahu weligeed awrteeda u baarifalaan ilaahu awrteeda ka dhigo u baarifalaan allah ka dhigo dambigan dambalkan allah dhaafo naar ilaahu naga badbaadi ilaahu naar naga badbaadi ilaahu naar naga badbaadi jannadaad ilaahu naga geli jannadaad ilaahu naga geli jannadaad ilaahu naga geli عذاب الله نقبل بعدين إله تعين مركي تماذا توحيد الله نوجه هاجم كلمة قدام بيس هذا كان لا إله إلا الله محمد رسول الله إله نوجدك هذا كان قدام بي لا إله إلا الله محمد رسول الله إله نوجدك هذا كان قدام بي لا إله إلا الله محمد رسول الله إله نوجدك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني حسوس ير مقالة سديت ميدي واجوكني إيو سقاش ميدي waxaa jirtay dad walaalaheena ah arab ah ayaa masaajid inoo soo diri jiray khayr allah siiyo masaajid 10 mitir times 10 mitir ayay noo soo diri jireen tabartood qof ahlu khayr ah oo ka soo mashaar qaato ay wax bay soo aruurinaysa masaha gabdhaha u badnaa jiray ayaa noo soo diri jiray markii masaajid la hadii yiraahdo araba masaajid soo dirtay baa la maqli jiray hadda nicmo dhacday مساجده نوعاس أهاي سدا ويري رايان دمان هذا مساجد وين أي لقى دقي مساجده ونوبتين قبله إيو منكي أوليش أي كتر تماي مساجده ونعم الله سبحانه وتعالى النسي إله نو زيادة إله نو زيادة إله نجا أقبل إله نجا أقبل تاس قضبك لواد إخواني خطر جرتا خطر صوتا عرورتا حقوض أيات دبوين كسعودا دم دين توالو سو دولي أرورت سجارهان والو سو دولي أهل الشر شيطان إيو حزبي ساكو سو دولي هلس إلاليو أرورت مبيلها قعنت لك ساراي هلس كإلاليو وافساد وأنو قان وادي شيء أنو غير أولوات جرأ مسف سديد تنجر لحي تنجرأ موبايل وين قعنت لك ساراي أنو قان والد ديلي والد كيسا ديلي والد كيسا هلاغي والد كيسا نار كو شوي أرنتاس هلس كإلاليو قرآن كان حفظيه قرآن كعروتها لوق بالله دينتي إله سبحانه وتعالى لبرا عروت الدين لبرين أدونكم أنفعين آخرنكم برايا أدونكم أنفعين أدونكم أنفعين آخرنكم أنفعين عروت الدين تهلا برا دينته إله وحيد عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين دينته وذقاته إله عز وجل دينته وذقلا دينته وذقاته سواء كقادنا صدقية وحنا كقادنا صلاة كقادنا لناك لو كتجا ما يكون أنفعيس دين توذا قاضى لا إله إلا الله برا لا إله إلا الله محل وجيدا شيخ محمد موسى الدهيري اللغة العربية برتا اللغة العربية برتا اللغة العربية برتا نين اللغة العربية أمبرنين أجو وحات دين تنكو هاني سمرتي
bartaad ku tag ma dhici karta inaad fahamtid qur'aanna ma fahmaysid sunnana ma fahmaysid fiqhina ma fahmaysid ardayda luga alcarabiya baranin bar oo barasho qawaaciddeeda maanta naxwadeeda la barto ku hadalkeeda la barto qoraalkeeda la barto kitaabkaad akhrisan karto dadka dhalinyarada ah oo da'da dhaafin oo maanta awood u leh inay wax bartaan luga alcarabiya bartaa si diintiin aad u barataan diintiin aad u fahamtaan oo quraankiin aad u fahamtaan sharci ilaahay sidii aad u barataan oo u fahamtaan jazaakum allahu khayran wa idinku dheereeyay dhamaantan ikhlaas Allah nagu arsaaqo ikhlaas Allah nagu arsaaqo masaajidka waa furan yahay saacadan ka bilaabato markii jazaakum allah khayr aan isla yar sabarna culimo kalena waa joogan qaar safar ku imaaday oo dacwo iyo khayr kale u imaaday ee qaar dhulka sii joogay waa joogan annaka dhulka sii joogno warkaayna markii waa yareysanaynaa Nairobi culimo ka imaadaan arkahaya jamaca mustaal waxaynu isugu nimid oon joognaa meel la isugu yimaado meeshii ugu fadliga badnayd waa beydka ilaahay waa meesha ilaahay loogu dhawaado waa meesha markii ilaahay wax laga rabo loo soo cararo inteena soo gashay waxaynu u nimid ilaahay inaynu wax ka helo intii dhistay waxa u dhistay inay ilaahay wax ka helaan dhammaan marka waxaa weeye acmaasha wanaagsan oo ilaahay agtiisa wax ka goysa waa meesha lala yimaado waxaan leenahay insha allahu tacaala intii dhistay oo ku soo hamisay oo istaajisay masaajidkan duca bay naga mudan yihiin aqbalaadana Allah leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo waqafkan qofkii loo niyeystayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u aqbalo inteena kale oo meeshaan joogta inta hadda joogta iyo inta joogi doontaba waajibaad ina saaran ayaa jirto masaajidku inaga mudan yahay waxaa ugu horeeya kow inaynu ku tukanno laba waxaa weeye in masaajidka loo wada istaago nooleyntiisa qof walba wuxuu meeshaan ka heli doonaa wax ilaahay uu ugu dhowaado masaajidkan waad u jeedeen waa qurux badan yahay derbiyadiisu way qurxan yihiin gogasha taalla way qurxan tahay waxaa inta badan dhacda dadka Soomaalida ahaa inay u fahmaan waxyaalihii ugu waaweynaayo masaajidda ilaahay ay kamid yihiin inuu shakhsi goona iyo ruux gooni iska leh waxay u arkaan inta badan inuu imaamku leeyahay muadinku uu leeyahay culimadu iska leedahay dadka kale oo dhan inay marti ku yihiin masaajidku sidaas ma ruuxu walba oo waxa weeye inaga mida kulligeen janno ayaynu wada rabnaa jannadana waxa lagu galaa qofka waxa weeye inuu u shaqaysto qof walba marka masaajidka wuxuu ka helayaa wuxuu ilaahay ugu dhawaado oo waxa weeye miisaanka xasanaadka loogu qoro imaanka masaajidka tujinta uu tujinhayo waa cibaado waa amal ilaahay loogu dhawaado muadinku aadaanka uu adimayo waa cibaado waa amal alla loogu dhawaado dhulka qofka xaaqa oo masaajidka waxa weeye carrada iyo busta ka tirtira waxa weeye waa cibaado ilaahay loogu dhawaado banaankiisaas qofka nadiifiyo waa cibaado iyo amal saalixa oo ilaahay loogu dhawaado dhammaan marka dadka xaafadda degan mas'uuliyad ayaa idinka wada saaran masaajidkan inuu quruxsanaado sii taagnaado muddo dheer lagu cibaadeysto waa waajib idinka saaran nadaafadiisa inaad ilaalisaan akhlaaqdiisa inaad ilaalisaan inaad u aragtaan beyd ilaahay oo idinka wada dhaxeeya dhammaantiina xaq idinku leh hawshaas iyada waa waajib idin saaran qodobka labaad aan ku daray waxa weeye masaajidka in la nooleeyo culimadu way sheegeen noloshiisa marka nabawo waxa ka ah tacliin iyo waxbarasho in lagu nooleeyo lagu nooleeyo dhammaanteen arday baynu wada nahay qofku inta uu nool yahay oo tiisu ayna imaanin waa arday culimo iyo caamayba arday baa la wadaya ragga culimada ama fuqahada ama shuyuukhda waaweyn oo aragteen oo masaa'ilka fadwado caalamul islaami joogan inta qofku uu ka dhimanaya waa arday sheekhaha ugu weyn cilmigiisu wuxuu ku jirayaa inuu maktabad ku dhex jiro oo waqti u helo oo maanta dhan kitaabka muraajaceeyo kitaabka aad bishaan xifdisa hadaada sanadkan oo dhan aad ku noqonin waxaad weligaa soo baranin buu noqonayaa marka waxa u dardaarmaya laga bilaabo imaamka masaajidka laga bilaabo dadka kale xaafadda degan kulli inaad arday wada noqotiin diinta islaamka la barto loona horeysiyo luqada carabiga waxa ugu horeeyo la iska saxaya inay noqoto luqada carabeedka naxwada in la barto qofku haduusan naxwada iyo qawaacidka carabiga uusan wax ka aqoonin dadna kitaab uma akhrin karo
khudbana uma akhrin karo dadna wax ma fahansiin karo luqada carabiga ee weliba naxwadu ugu horayso in waxaa weeye dhammaan la iska dhiso oo la barto ummaddana waxaa weeye insha allahu tacaala culummadu inay u faa'iidayso culummada inteeda kalena inay noqdaan dad arday ahoo culummada ka dambeeya masaajidkana lagu nooleeya tacliin yuuna masaajidku inaga noqonin waxaan u malaynayaa waqafka masaajidka la waqfay dadkii waaqifiinta ahaa ma aysan dhihin aan u malaynayaa 5 salaadood bas ku tukada oo masraad ma joogto saasay tiri 5 salaadood bas ku tukada inta kale ha furin lama dhihin aan u malaynayaa masaajidka ha furnaado ha noqdo masaajid tacliin ay ka socoto waxbarasho marka aan leeyahay ha furnaado marka aan leeyahay maaha masaajid ilmuhu ay iskaga dhex ciyaarayaan masaajidka gooshaan waa u jeedin say u qurux badan tahay bisha dambe ama sanadka dambe markii loo yimaado ayadoo wada carro guduudana oo daciskii lala soo galayayna noqonin marka masaajid tacliinta u furan oo kutubta lagu akhristo oo qur-aanka lagu xifdiyo oo buuladan iyo dadka xaafadan degan ay ku nuursadaan ha noqdo masaajidka insha allahu tacaala taladeedana hadda culimmadii magaalada ayaa joogta insha allahu tacaala ayaga idinkala qayb qaadan kole imaankii masaajidka iyo dadkii xaafadda deganaa culimmadoodu way joogaan annaga wax iyagu waa unaga dardaaran marka baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan masaajidka howlihii masaajidka sidii loo sii wadi lahaa baa loo baahan yahay in laga qayb qaato masaajidka nebi sal ly slam waa kii noo sheegay qofkii masaajid dhisaa ilaahay baa guriga oo dhisayaa jannada marka masaajidka waxaan u baahannahay in aan ilaalino aan laga taxadaro khaasatan dadka degan deegaankan buurbuura lagu magacaabo masaajidka waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado ayay ka mid tahay in uu qofka masaajidka ku cibaadaysto masaajidka looma furin 5 salaad kaliya in la keeno looma furin masaajidka waxaa loo furay in lagu cibaadaysto wax walba ilaahay raali ka yahay lagu sameeyo uu u horeeyo kitaabka quraanka ah kutubta laga akhriyo wax walba in yaani lagu faa'iideysto halkana waxaan ugu mahad celinayaa mashaayikhdiina soo dhaweysay iyo culimadiina soo dhaweysay ayaan ugu mahad celinayaa marka insha Allah tacaala waxaan leeyahay waad mahadsantiin saad noo soo dhaweysan insha Allah السلام الله عليكم ورحمة